dhinaca kalena Sultan Cabdilcasiis oo kamid ahaa madax dhaqameedka ka socda wadanka Soomaaliya ayaa si cad shaaca uga qaaday inay raalli ka yihiin in Somaliland ay aqoonsi caalami ah ka hesho beesha caalamka. waxaan ugu hambaleynayaa Somaliland muddo 12 bariyan joogna sahan tiro badan baan ku sameynay nabadgelyadeeda ma ahan man dakhala bayt Abu Sufyaan fahwa aamin wey qorraxdu haday halka marayso qofkii calaacasha saara waxa arkayo qof halka maraya kama qarin karo Somaliland ma la qarin karo waxaan maanta ku dhawaaqnay annagoo ah dhaqankii Soomaaliyeed in ay madax banaanidoodii Soomaaliya ka go'een Soomaaliya wala socotaan baarlamaankeedii dawladdeeda waxa dhisay baarlamaankeedii dawladdeeda dhaqanka dhisay baan surgudoon u ahay marka anigoo ku hadlaya afka Soomaaliya waxaan go'aamiyay oo ku dhawaaqay Somaliland in ay madax banaanideeda ay banaanka la taagto waxaan u yeerayaa jamcadda qurumaha ka dhaxaysa United Nations waxaan Somaliland siinay waxay iyadu leedahay baan siinay waxaan u dhiibay xorriyadii iyadoo ay 4 iyo 60 noo keeneen